بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. habeenkan oo ah hijrada nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam laga jooga 1446 bishii safar 24-keedii oo cawada 25 ay soo gelaysa oo habeen khamiisa oo waafaqsan 2024 taariikhaha miilaadiga la qoro 28-kii bishii 8aad. in sha allah waxaan bilaabeynaa kitaabka saxiix alimaam albukhaari raximah اllahu tacaala. qasadka annaga ma ahin inaan abwaabta iyo axaadiista iyo maaragtay fiqigooda in badan inaan waqti badan ku bixina ma ahin. waxa xadiidka laga faa'iideysanaya daalibulcilmiga waa faa'iideysanaa, asagaa faa'iideysanaa, juhuud ku faa'iideysanaa biidni اllahi tacaala. laakiin 3 arrimood baan xoog saari doonaa biidni illah. dhinac horta dalabatulcilmiga saan u ishaarnay waxaan dooneynaa kitaabada arqaamta le inay qaataan oo xadiid kastaba meesha ugu horeysa inta meeloodoo saxiixa uu ku soo bixi uu ku sheegay. daalibkaas marka waa inuu qorto taraajimta uu ku soo bixiyey imaam albukhaari xadiidkan, baab kastoo isku soo bixi, iyo waa inuu asaga baarta baab kastoos imaam albukhaari xadiidkan ku soo bixi iyo asaaniiddiisa mukhtalifada. waa inaas daalibulcilmiga qorto oo islambaradaas qorto, warqad buug yaroo khaasa qaata oo isku qorto. calaa sabiil mithaal baan samayn doonaa cawga xadiidka ugu horeeya ayaan tambiih yar idinka tusin doonaa, inta dambena adinkaas samayneysaan. muhimadeenna ma ahayn marka ma ahin in axaadiista markay soo takarorto inaan dul istaagno. waxa weeye xadiidka axaadiis badan buu soo celcelinaya imaam albukhaari. mathalan xadiid inama alacmaalu binniyaad oo kitaabka ku bilaabi doono ilaa meesha uu ku bilaabay maaha in 6 meeloodoo kale ku soo celin doonaa. asaaniid mukhtalifahaasna ku keeni doonaa dhammaan. waan isku yara baraarujinaynaa arrintaas. adinkaa loo baahanya marka xadiid kasta marka la gaara inta aada la maqantihiin kitaabka usbuuca intiisa kale, maalimahaan casharka akrinayna mahayna maalimaha kale, in xadiidka la akrin doono, axaadiista casharka soo socda la akrin doono, abwaabta ay ku taalla xadiidka ilan arqaamti meel kasta xadiidkan lagu soo bixina uu kuu sheegi doonaa, iyo rijaasha mukhtalifada uu ku yaalla inaad soo qoratiin adinkaa loo baahan yahay. rijaashaas markaan marna insha allah wixii xoogaha isku baraarujin u baahan waa isku baraarujinaynaa. waxaa meesha yeeloon bilaabayna waa saxiixu alimaam albukhaari raximah اllahu tacaala. horta waxaan dalabada ku baraarujinaynaa marka taraajimta kitaabka oo fiqiga miirana, liannahu fiq alimaam albukhaari taraajimtiisa ayay ku jiraan baa la yidhahaa. taas waa mid. 2 asaaniidda imaam albukhaari in daalibulcilmiga xoogaha baraarugsanaada oo kutub kaleu ku arki doonaa ama sunanka kale ama kutubta kaleo saxiixa ah, asaaniidda kitaabka rijaasha bukhaariga inuu garanayo daalibulcilmiga oo isku baraarugo. bacd almusطalaxaat oo imaam albukhaari uu sameynaya hebel baa mutaabaceeyey maxaa la yidhahaa iyo waxyaaba lamid ah. mutaabacaadka waxyaabaha ay faa'iideynayeen waxyaaba kamid ah inaan meelo badan isku baraarujino. arrimo caynkaasoo kale ayaan xoogga saari doonaa biidni اllahi tacaala. kitaabkana inaad socdo ayaan isku dayeynaa sida ugu dhow si uu ugu dhamaado biidni illah. kaliah waxaa muhiimka oo inaan isku baraarujin u baahannahay kitaabkan sida ummadda muslimiinta ay ku ijmaaceen asaxu kitaabin bacda kitaab illah subxaanahu watacaala. axaadiistiisa marfuucada way waxa laga hadlaya. wuxuu leeyahay axaadiid oo mucalaqaad ah. mucalaq waad garanaysaan ragga dalabatulcilmiga oo xadiidka musطalaxa wax ka soo akhrisanayey, xadiidka sanadka aan lahayn ama sanadkiisa qeyb ka mid uu gooyey bilowga uu ka gooyey ayaas maarata oo axaadiis badan uu keeni doonaa.
axaadiista ayaga oo mucalaqaadka way badan yihiin saxiixu lbukhaari ku jiraan sidii muslim oo kale ma ahin muslim aad bay yar yihiin mucalaqaadkiisa bukhaari way badan yihiin xaafid kitaabka fatxulbaarigana waa ku xiriiriyey oo waa kaga hadlay kitaab gaar ahoo tacliiqu tacliiq ama takliiqu tacliiq siday dadka qaar ku magacaabayiin ay ku magacaabayiin oo qorina waa jira oo mucalaqaadka bukhaariga uu ku xiriiriyey oo isku sharxay raximah llahu tacaala oo madbuuc oo maanta yel taraajimtiisana waa fiqi miiran arrimahaas ayaan inaan ka faa'iidaysano darteed ayaan kitaabka saxiixa oo weyn usoo qaadayna oo takraaraadkan leh wa ilaa kutubta sidii tajriid sariixa oo kale ayaan iska soo qaadan lahayn oo fiqiga axaadiista marfuucada ayaan soo qaadan lahayn walow ay maaragtay wada kamili karin oo alfaadii ay kaamil ku noqonaynin tajriid sariixa axaadiista marfuucadeed alfaadooda kaamil kuma wada ahin axaadiis badan oo alfaad badan ku jirta ayuu ka tegaya waan dul maraynaa marka sidaa darteed adinka ayaa loo baahan yahay marka inaad tarkiis badan siisaan waxaana isku dayaynaa inaan kitaabka aada ugu istaagin oon soconno sida waktiga ugu yar oo suuragal oo ilaahayna waafajiy kitaabka uu nooga dhamaado imaam albukhaari arrin yaroon inaan isku baraarujino munaasib ay tahay kitaabka ta'liiftiisa dhowr arrimood ayay ahlu cilmi wariyeen oo ku kalifay mid waye wuxuu leeyahay sanad saxiixa waxay culimadii dalabadiisa warinayeen ayaga oo fadhiyaan bukhaari asaga oo la fadhiya isxaaq ibnu raawiya sheekhiisi isxaaq ibnu ibraahim alxandali isxaaq ibnu raawiya asaga oo la fadhiya oo dalabadii ay yihiin ayaa isxaaq wuxuu soo jeeday haddii qof idinka inka mid samayn lahaa kitaab mukhtasar ah oo axaadiista rasuulka oo saxiixa bis uu ku jamcinay bukhaari hortiisa axaadiis badan baa la qoray maarata laakiin saxiix kilaax maayan ahayn mathalan muwada markii uu qoray imaamu malik imaamu shaafic oo kale wuxuu leeyahay adduunka korkiisa ma yeelay kitaabka ilaahay ka soko muwada kitaab ka saxiixsan laakiin bukhaari iyo muslim ma jirin waaga asaga intaan la qorin bay ahayd axaadiistiisa mutasilada ahna waa sidii muslim iyo bukhaari oo kale ama sixada waa darajadaas ayay joogaan muwada laakiin wuxuu leeyahay balaaqaad fara badan iyo maxaa la yidhahaa axaadiis badan oo munqadica ayuu leeyahay oo isku dayay xaafid ibnu cabdilbar raximah llahu tacaala kitaabkiisa tamhiidkaa inuu xiriiriya 4 xadiid intaan ka aheenna sanad buu u helay dhammaantood marka ayagana sidaas ay mutasil u yihiin muhiimadeenna marka waxaa weeye inaan kitaabka dul marna rijaashiisana isku baraarujina taraajimta iyo mucalaqaadka fiqiga ku jirana aan ka faa'iidaysana xadiidkana wixii markaas macno ahoo si guud ahaan in la fahmo u baahan yahay inaan marno intaas way ujeedadeenna ee ma ahin xadiidka inaan sharxayna oon maaragtay kalimaad dheer aan marayna ma ahin yaquulu imaamu albukhaariy raximah llahu tacaala qaala sheikh alimaam alxaafid abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibn اlmugiira ibnu albukhaari raximah llahu tacaala bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaabu badi lwaxyi yani waxyiga sidii uu ku bilowday bukhaari meeshaan wuxuu ku cadeeyey waxa uu doonaya axaadiista nabiga ilan waa waxyi marka wixii ilaahay uu waxyoodi weye nabiga hawe iskagama hadlay marka axaadiistii nabigeena salى اllahu alayhi wasalam loo waxyooday si gaar ahaan waxyiga sidii uu nabiga ugu bilowday kayfiyada uu ahay ayuu maaragtay ku bilaabay asaaska kitaabka koowaad weye ilaa 100 kitaab bay gaarayeen axaadiista saxiixa bukhaari ama adi 90 iyo wax inay gaaraan baa dhici karaysa ثuma qaala raximah اllahu tacaala baabu kayfa kaana bad-u lwaxyi ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam sidee buu ahay baabun kayfa kaana sidee baas ahay bad-u lwaxyi waxyiga bilaabitaankiisa oo ilaa rasuuli illah rasuulka ilaahay waxyiga lagu bilaabay sidee baas ahay sidee loogu bilaabay iyo wa qowli اllaahi tacaala wa baabu qowli اllaahi cajala dikruh ilaahay qowlkiisi inaa awxaynaa ilayk kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdih nabiga allow waan ku waxyoonay sidii nebiy llaahi nuux iyo ambiyadii ka dambeeyeen sidii aan ugu waxyoonaan adigana kugu waxyoonay marka ambiyada dhan waxyigoodii waa isleeyahay sida nebi maxamed loogu waxyooday ayaa ayagana loogu waxyoonayey nebi maxamed sidii loogu waxyooday buu noo sheegaya mualifka
رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحميدي وهو شيخ الإمام البخاري ayaa noo sheegay أبو بكر القرشي الحميدي الأسدي من رهط خديجة عبد الله بن الزبير بن عيسى ayaa la yidhaahaa أكبر شيخ qurashi ah oo bukhaari leeyahay waye oo haddana ree maka ah. marka tacalamuu min qurayshin walaa tucalimuuha ahar baa ku soo arooray sixadiisa heerkay gaarsan tahayba. marka maadaama shiikhiisii qurashigaay uu yahay oo nabiga ilaahay ay qaraabo yihiin, ree makana uu yahay, xumeydigan saaxibkii imaamu shaafici buu ahay la haajiray markii aas masar u socdi raacay 4 sano masar joogina la joogay. maxaa la yidhaha markii uu masar shaafici dhintay kadib uuna soo noqday hoos maka ku soo noqday raximahu llahu tacaala abu bakr alqurashi alxumeydi cabdullahi ibnu zubayr ibni ciisa. qaala xadahanaa sufyaan ibnu cuyeyna abu maxamed alhilaali waa sheekhi maka. maalik ibn 7 taabici buu cilmi ka qaatay baa la yihaahaa. maalik iyo asaga ayuu leeyahy imaamu shaafici raximah llahu tacaala: lowlaa humaa ladahaba cilmu اlxijaaz. haddii sufyaan ibnu cuyeyne iyo maalig ayn heen cilmiga xijaaz waa tegi lahay buu leeyahy raximah llah. asalkiisi kuufuu ku imaaday, laakiin makuu imaaday, cilmigiisi buu maka ku faafiyey. marka waxaa la yidhahaa 70 sana ayaa mar kasta markaas xajka jooga oo carafo istaaguu lahay. ilaahayow sanadka ugu dambeeya ha ka dhigin. sanadii ugu dambeysay wuxuu yidhi baa la yidhi, ilaahay waan ka xishooday intaan ka badan inaan weydiiyo cumri intaa ziyaado ka. marka sanadka isaga ahay ilaahay kama baryan kii ugu dambeeyey inaad iska dhigin, waa la oofsaday. intaan xajka kale la gaarin ayaa la oofsaday. abu maxamed alhilaali sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadahanaa yaxya bnu saciidin alansaariy. yaxya bnu saciid alansaari marka waa taabici sagiira. yaxya ibna saciid ibna qays ibna camr alansaari taabici sagiira weye. qaala akhbaranii moxamed ibn ibraahim ataymi. moxamed ibn ibraahim ibn alxaarith ataymi waxa weye awsaadi taabiciinta ku jiraa. taabiciinta waa dabaqaad yay leeyihiin, qoladii dhexe oo taabiciinta weye. annahu samica calqamata bna waqaasin allaythi. calqamata bna waqaas allaythina kibaartii taabiciinta weye. 3 taabici baa marka meesha iskula jiro, xadiidka isla warinaysa oo yacni sanadka iskula jiraan. xadiidkan ikhwaani wax yaroo intibaaha dalabat alcilmi ay u baahan yihiin. culimmada waxay leeyihiin ahlu xadiid, ahlu sanad saxiix ah oo nabiga looga wari oo halkan sanadka aheen ma jira yaxya ibna saciid alansaari iyo dadka ka koreeya. yacni cumar ibn alkhadaab qof saxaabi ah oo sanad saxiixa loogu wari oo nabiga ka wari cumaraa lahaya. macnihiisa maahin, xadiidka macnihiisa waa mutawaatir, axaadiista niyada ka hadlaysa. laakiin xadiidkan inama alacmaalu binniyaati ah, qof aan cumar ahayn oo saxaabi ah oo nabiga ka wariyo oo dariiq saxiixa ku wari looga wari lama hayo. cumarna calqamat ibna waqaas allaythi qof aan ahayn oo sanad saxiix oo ka wari lama hayo oo dariiq saxiixa lagu haya ma jira. calqamat ibna waqaas allaythi oo kibaaru taabiciin ahna maxamed ibn ibraahim ibn alxaarith ataymi oo awsaadu taabiciinta ka mid ah, qof aan ahayn oo wariyey oo sanad saxiixa ku wari lama hayo. maxamed ibn ibraahim ataymina yaxya bna saciid alansaari qof aan ahayn oo taabici sagiir asagana waa 3 taabiciin oo iskula jirto. qof aan ahayn oo xadiidkan wariyey oo sanad saxiixa ku wariyey lama hayo. xadiidka marka yaxya bna saciid alansaari
ayuu ka tawaaturay oo iska faafay. ninka ayaa faafiyey xadiidkan nabiga salى اllahu alayhi wasalam. sidaan arki doono ama arqaamta meeshaan uu inkugu keenay 6 meelood oo kaloo isku wari imaam albukhaari yaxya bna saciid alansaari. hadda meeshaan waxaa ka wari sufyaan ibnu cuyeyna way ayaan dhahnay liannahu ninka ka warinaya ayaa xumayde. waxaan arki doonaa bukhaari asagoo warinaya oo ka warinaya maxaa la yidhahaa sufyaan athawri waa noo imaani doonaa asagoo warinaya oo dariiqa sufyaan athawri yaxya bna saciid uu ka warinaya. laakiin ninka sufyaan athawri ka warinaya magacii ninka nacam laa yaxya bna saciid way ka warinayeen. laakiin maxamed waan arki doonaa in sha allahu tacala waan gaari doonaa maxamed ibna kathiir alcabdi inuu yahay ayay u badan tahay waan arki doonaa. almuhim talaamiid ayaa lagu kala garanaya sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaan athawri. hadda ninkan waa sufyaan ibnu cuyeyna. ninka kale oo sufyaanka kale oon u tegi doonana oo xadiidkan ku jirana waa sufyaan athawri. waa laba sufyaan way ka wariyeen yaxya bna saciid meeshaan sidaan arkayn. waxaa kaloo arki doonaa maalig oo ka warinaya yaxya bna saciid wuu noo keeni doonaa bukhaari. maalik ibni anas imaamu daari hijra saaxibu lmuwada waan u tegi doonaa. waxaa kaloo noo keeni doonaa insha allah intaa kulli inaad soo wada qoratiin aan u baahannahay. waxaa kaloo noo keeni doonaa xamaad ibni zayd ibni dirham maxaa la yidhahaa imaamkaas hiqaha oo daabidka oo ka warinayana waan arki doonaa. waxaa kale oo ka warinaya oon arki doonaa maxaa la yidhahaa yani waxaa weye laba sufyaan iyo xamaad ibna zayd maalik ibna anas iyo la xamaad ibna zayd way xamaadka ka warinaya oon xagga ugu tegi doono. ninka afaraad shanaad 5 nin ayaa ka warinaysa midii meel waan arki doonaa. rijaal baa ka kala warinayin marka. laakiin yaxya bna saciid alansaari waxa ka warinaya waa raggan ilaa 5 dariiq ayaas ugu warin doonaa bukhaari. waana 6 meelood oo kale as ku soo bixina liannahu maalik 2 nin baa ka warin cabdullahi bna maslama yaxya ibna qazaca ayaa ka warin doona arki doonaa. maxaa la yidhahaa xamaad ibna zayd waxaa ka warinaya oon arki doonaa maxaa la yidhahaa abulfadl caarim maxamed yani abulfadl caarim oo ka warinaya ayaan arki doonaa. maxamed ibn lfadl abunucmaan maxamed ibn lfadl abunucmaan caarim oo ka warinaya ayaan arki doonaa. xamaad ibna zayd musadedna waa ka warin doonaa musaded ibna musarad labadaa oo ka warinaysa ayaan arki doonaa. calaa ayati xaal 5 nin oo ka warinaysa 2 sufyaan iyo maalig iyo xamaad ay ku jiraan ayaan arki doonaa oo tegi doonaa oo ka warinayeen maxaa la yidhaha yaxya bna saciid alansaari ayaan bukhaariga uga tegi doonaa biidn اllahi tacaala. markaad aragtid marka intabi ragga ka warinayana xumaydigan waxa weeye sufyaanka ka warinaya sufyaanka aad ka warinaya waa sufyaan ibnu cuyeyna. intaa sidaa u ogow xadiidka macnihiisa dalabatulcilmi way garanayeen waana ka soconaynaa. 6 meelood buu kusoo bixiyey imaam albukhaari. 6da meelood waxaa weye oo dambe oo imaani doonta. meeshaan waa meesha 7aad abwaabtoodana waa imaani doonaan. taraajumta ayaan ka arki doonaa waana ka soconaynaa ma dul istaagi doono. ثuma qaala raximah اllahu taعaalى xadaثna cabdullahi bnu yuusuf qaala akhbarana malik can hishaam bni curwa can abiihi can caaئishaةa umi اlmuؤminiina radي allahu canha ana alxaariثa bna hishaami radي allahu taعaalى canh sa'la rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaal ya rasuula allah kayfa yaأtiika alwaxy faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam axyaana yaأtiinii mihla salsalaة اljaras wa huwa ashadhu calaya fayafsamu canii waqad wacaytu canhu ma qaal wa axyaana yatamahalu liya almalaku rajula fayukalimunii faacii ma yaquul qaalat caaئishaةu radي allahu taعaalى canha walaqad ra'aytuhu yanzilu calayhi اlwaxyu fi اlyowmi الshadiid اlbard fayufsamu canhu ama fayafsimu canhu waina jabiinahu layatafasadu caraqa.
عبد الله بن يونس عبد الله بن يوسف التنيسي روادي مالك موضع كوريان بوكجرا من أثبت الناس في مالك لدى مالك وي عبد الله بن يوسف التنيسي تنيس يعني ومقاله مصر كتل أولوذا مصريين تو كمدها قال أخبرنا مالك وقرنيسان مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي إمام كيوي مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام هشام تابعين تسغارته كمديها يعني طبقة رابعة مية ميشان يعني التابعين تيريريد بو كمديها أبيه بو كورنا عروة ابن الزبير ومارتي كبارتي تابعين تكمده عروة ابن الزبير وحو كورنا عن عائشة خبريرتي وي عائشة خبريرتي وي عروة وحاوي عروة وحد شيء أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد شيء مركا عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أصدقه يدي كورنا يوكلوي رضي الله تعالى عنها وحي لذا أم المؤمنين حديث كان مركا ميل كلنا كوكين دون بخاري دمالي ماشي كوكين وانا أركينا فروة ومارتي فروة ابن أبي المغران اللي رأسه كورنا علي بن مسر وكورنا ينركي دونا دماليهن ميلها رجاشة ونركي دونا وانا كسعونينا وحي لذا أم المؤمنين عائشة نين اللي يرى حارث ابن هشام رضي الله عنه وصحابي نين كان حارث ابن هشام أم المؤمنين عائشة ترجم أم بهنا حارث ابن هشام أبو جهل ولالكي وهي أبو جهل مقعي سمحوه هاي عمرو بن هشام مركا أبو جهل ولالكي وهي ما نمي فتح مكلا فراي يوسو إسلامي إسلام كيسن آدبو وناك سنادي فتوحات كي مصر لفرنا يبونو كشهيدي رضي الله عنه dadkii xabsiga la geliyo maartay dhibka loo geystayna kamid oo hay almuhim xaarith ibn hisham radiyallahu anhu ayaa nabiga su'aalay wuxuu weydiiyey sa'ala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah kayfa ya'tiika alwaxy waxyiga sidee baa iskugu imaadaa nooga sheeg aan baraarugna waxuuna aan ka garanna sidee baa iskugu imaadaa waxyiga faqaala calayhi waalihi asalaatu wassalaam axyaanan جمع حين أي أحيانا لقو جمعي مرمر يأتيني وإيمانيا مثل سلسلة الجرس جرسك دواقيس أو كلاس يقول ماذا سلسلة ديس جرسك وبهلك أن أنغان الدنا ومين دهنا كان حولها لقو حير أو برتا مركا سلسلة وحا اللي يرها برتا لما برود مركا اسكود دعان دواقا كسوبح أي سلسلة اللي يرها jaraska marka kaas way juljul iyo jaras wax la yiraahdo jarasaa la garaaca anaga waan dhahnaa maaragtay jaraska garaac baa laleeyahay ilmaha gambaleelka marka loo yeeranayo bir baa la isku garaacay dhawaaqa birti isku dhacday dhawaaqeeda oo kale asagoo dhawaaqayaas ii imaanaya marmar axyaanan lianna waxyiga mogta wax sahlan maaha inaa sanulqi calayka qawlan thaqiila marmar nabiga intuu waxyiga kusoo degay sala allahu alayh wasalam ayaa daabadii uu saarnay ayay fadhiisanayo socon weyne dhididii nabiga calayhi الsalaatu wassalaam ya'tiinii waa ii imaanayaa mithla salsalati اljarasi jaraska salsaladiis oo kale dhawaaqaas oo kale uu igu imaanayaa wa huwa kaasna noocaas kan ahna ashadduhu kan ugu daran weeye calaya aniga midka igu daran weye saxaabigii nabiga dhinaciisa fadhiya markuu waxyiga kusoo degahayey oo lugtiisa bawdada nabiga bawdadiisa ay saarneed wuxuu yidhi lugta inay iga jabta ayaan ka baqay buu yidhi culayska dartii laakiin waxa waa malag ma jabaayeen dhibna ma gaarsiinayo sidaasuu igu imaaday marmar wa huwa kaasna waxyiga noocaas igu imaanayana ashadduhu kan ugu daran waya calaya aniga korkayga fayufsamu canii fayafsimu canii يعني فصم ونطقي لا انفصام لها أيدي وامحي فقد استمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
faqad istamsaka bilcurwati اlwuthqa la nfisaama laha. alinfisaamu waxaa la yidhaha culamada qaar ahluluga waxay leeyihiin fasmi iyo fasli way kala yihiin. faslu shay waa qadcuhu, shayga la gooyo weye. fasmigana waa shaygii in la gooyo laakiin aasan meeshii ka kala tegin waxun iska haystaan. waxyigan markuu nabiga ka go-ayay sal alla alay slam aharkiisa nabigu ku baaqiyay soo maha, kama goyno macnaha wixii uu sheegay inuu ka tagay ma ahin. fayafsimu canii waqad wacaytu canhu, wixii uu ii sheegay waan xifdiyey waan weelayey. fayafsimu canii waa iga go-a ama fayufsamu canii waa liiga goynaya. waqad wacaytu walxaal qad wacaytu aan xifdiyey oon fahmay canhu malagii xaggiisa anigoo ka fahmay maa qaala wixii uu yidhi baan ka fahmay. malagii waxyigii ii keenay wixii uu ii sheegay anigoo fahmay ayuu iga go-aya. waa qasadkii laga lahaa. mujrimiin oo mustashriqiin baa waxay yidhaheen jin baa u imaanaya moxamed, ilan meel un diinta ka dacniyaan ay doonayin. marka qofka jinka markaas u imaado saas oo kale waa xanuunsanaa, waxba inaas ogaaninaa dhacaysa. laakiin dadka qalalka ku dhaco jinka ku dhaco caqli ma qabaan, caqligooda waa tagaa soo ma adan arkin. laakiin nabiga waxay qirayeen dhammaantood caqliyadiisi iyo yacni wax uu maaragtay ahay iyo sidii uu ku sifaysnahay iyo istinaarada quluubta uu ilaahay siinay ay qirsan yihiin ayaga laftooda oo ay leeyihiin maaragtay ilaa cabqariyadiisa nabiga ay tilmaamayeen calayhi الsalaatu wassalaam. fayafsimu canii waa iga go-a ama fayufsamu canii waa liiga gooyahayaan. waqad wacaytu xaal aan xifdiyey oon fahmay canhu can ilmalaki maa qaala wixii uu sheegay. wa axyaanan marmarna hal mar noocaasuu ugu imaada marmar. wa axyaanan marmarna yatamathalu liya almalaku malagii waa isu kay suuraynayaan. yatamathalu ay yatasawaru liya almalaku malagii wuu iskugu kay suuraynayaa rajulan nin buu iskugu kay suurayna. waad garanaysaan xadiidkii cumar oo maaragtay kala xasuusteen soo maaha. maaragtay baynamaa naxnu junuusun cinda rasuuli llahi id jaaana rajulu shadiidu bayaadi hiyaabi shadiidu sawaadi shacri. yani xadiidkaas oo kale waa jibriil, inahu jibriilu ataakum yucalimukum diinakum ama liyucalimakum diinakum. marka nin buu iskugu kaysawarahayaa, marka qof shaksi buu iskugu kaysawari. yatamathalu liya almalaku rajula fayukalimunii waa ila hadlaan faacii waxaan xifdinaa oon fahmi maca alxifdi way maa yaquulu wuxu uu sheegaya malaga wuxuu ii sheegay haddana waan xifdinaya oon fahmaya. noocyadaana kamida noocyada malaga ugu imaado. ayadda qur-aankan alla wuxuu ku leeyahy wamaa kaana libasharin an yukalimahu اllahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula. 3 suuradood way ayadda waxay suuradaysay. qaalat caaishatu radia allahu tacaala canha. caaisha marka xaarith ibni hishaam markuu su-aalay nabiga ma iyadaa la joogta sidaasaa muuqata mise xaarith ibni shihaam bay ka warisay oo u sheegay. saxaabi wuxuu ka wariyay dhib ma lihin, marka midna dhib ma ahin. umulmuminiin caaisha qof faqiihadna waa ahayd nabiga sal allahu alay wasalam in badan waxyaabaha agtiisa ka dhacayana aad bay u exaadayn jirtay radia allahu canha. dhakaa iyo fiqi iyo dayaana ilaahay isku siiyey. waxay leedahay umulmuminiin walaqad ra'aytuhu nabiga ilaahay waan arkay sala allahu alayhi wasalam yanzilu calayhi alwaxyu waxyiga asagoo isku soo degaaya fi lyowmi shadiidi اlbardi maalin qabowgeeda aada u daran yahay. fayufsamu canhu waa laga gooyhayey ama fayafsimu canhu waa ka go-haya waa un isla macnihi. walxaal ina jabiinahu dhabankiisana dhafoorkiisana layatafasadu uu dalaandalmaayo caraqan dhidid ka dalaandalmaayo. yacni fasdiga waa taqaanin sooma, yacni qofka markii la daldalaaciyo inta la toobo la daldalaaciyo ayaa fasdi la yidhaahaa oo xididaha la daldalaaciyo ama jirka la daldalaaciyo. sidii jarkii oo la daldalaaci oo dhidid ka soo baxaya sidii dhiiggaba u soo baxaya o kale sida dhididaa ka shumaaya iyadoo qabowna la joogo maalin qabow ay tahay. laakiin malagii markaas u imaado waxyiga ka go-ay ayadoo nabiga dhididsan yahay ayaan arkay bay tiri sala allahu alayhi wasalam. marka nabigana sidaas ayuu u sheegay calayhi waalihi الsalaatu wassalaam. meelaha kaloo isku soo bixi insha allahu waan mari doonaa anagoo sanadka waan arkayno. ثuma qaala alimaamu الbukhaariي raximah اllahu taعaalى baabun xadaثanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaثana اleyth
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. xadiidkii uu dheer yahay marka sanadkan soo akhrinaynaa kadibna matnigan la soconaynaa. yaxya bnu bukayr, yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr ayaa la yidhaahaa. in badan buu imaamu albukhaari awowgiis u tiiriyaa. qofka in awowgiis loo tiiriya wax dhiba ma ahin. yani acni bna cabdilmuطalib, nabigu wuxuu leeyahay ana bna cabdilmuطalib ana nabiyu laa kadib. marka qofka awowgiis loo tiiriya wax dhib maaha, waa aabihii awowgii. yaxya bnu bukayr, yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadathana leyth. leyth waa imaamkii faqiiha ee masr, leyth ibna sacd alfahmi, imaamu ahli masr. shaafici wuxuu leeyahay qof aan soo gaaray oo liqaagiisa inaan la kulmin aan u shalaynayo leyth waye, fiqigiisa iyo xifdigiisa siduu ahaa. marka faqiihi markii uu maalig madiina daarulhijra uu imaamka ka ahaa ayuu isagana masr imaam ka ahay radia allahu canhum jamiica. qaala xadathana leyth, leyth ibn sacd alfahmi can cuqaylin, cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil abu khaalid alayli min ahbat الnaasi can ibni shihaab. ninka waxaa la yidhaha cuqayl ibnu khaalid ibnu cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil abu khaalid alayli. ayla yani waa balda. dadka ahbaada oo talaamiidii moxamed ibni shihaab aلzuhri ayuu ka mid yahay. can ibni shihaabin wa huwa alimaam ataabici, dabaqadii hishaam iyo hishaam ibni curwa hadda soo marnay oo kale waye. waxaa weeye moxamed ibni muslim ibnu cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni shihaab aلzuhri min akhwaali الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam. wuxuu leeyahay imaam shaafici bacda abi hurayra ummadda sooma marin qof ka xaafidsan. sidaas uu leeyahay. muslim wuxuu leeyahay alimaam muslim markii uu ka hadlayay ragga xufaada alfaad ay la keliyoobeen 90 xarfan wax lamid ah ayuu ibni shihaab la keliyoobay. u leyahy cid kaloo warisa aan la garanaynin ayuu leeyahay. dadka wax ka wariyeen aad bay u fara badan yihiin. talaamiidiisa ilaa 800 ka badan ayaa axaadiis saxiixa laga wariyey oo ibni shihaab wax ka warinayiin. ayib ibnu shihaab moxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni shihaab waxaa weye marat aلzuhri min bani zuhra akhwaal الnabiy sal اlه alay slam kana faqiha alxijaaz wالsham. can curwata bni الzubayr, curwa ibn zubayr horaa usoo marteen ibn اlcawaam. hishaam waa kii uu ka warinaya wiilkiisa oo taabici ah. can caaishata umi اlmu'miniin, habaryartii ayuu ka warinaya radia allahu canhum jamiica annaha qaalat inay tiri um اlmu'miniin awalu maa budi'a bihi rasuulu اllahi sal اlه alay wasalam. um اlmu'miniina caaisha meeshaan waxyigii nabiga sidii lagu bilaabay, waktigii lagu bilaabay ayaa inoogu warramay. caaisha maba dhalen waktigaas. marka ama nabiga ilaahay bay ka maqashay ama qof kale ay ka maqashay oo joogay. saxaabi maraasiil الصaxaaba maqbuula, waxaa waye waa mutasila. qof saxaabi ah wax asaga nabiga aasan joogin waqdiyada markay dhacaysa hadduu wariyo waa maqbuul. liannahu saxaabi kale buu ka maqlay cala aqal, ama nabiga ilaahay buu ka maqlay ama saxaabi buu ka maqlay. marka umulmuminiina caaisha waxay leedahay nabiga ilaahay markii lagu bilaabay waxyiga ayay nooga warramay. awalu maa budi'a bihi wax lagu bilaabay wixii ugu horeeyey rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam oo min alwaxyi ku bayaansan. alru'ya asaalixa, ru'yada wanaagsan waay fi nawmi, hurdada uu ku arkayo. riwaayaadka qaar waxaa weye alru'ya asaadiqa, ru'yada runta. ru'yada saalixada iyo saadiqada waxaa weeye waa isla mid. kusii fasiray ayadaa fasiray waxay leedahay sidee bay saalixo ku tahay. fakaana laa yaraa ru'ya, waxaasay nabiga sal lla alay slam kaan arkin ru'ya ilaa jaaءat way u imaani jirtay mithla falaqi subxi, xaal ay lamid tahay subaxa cadaankiisa oo kalo
ayay u imaadi jirtay yacni riyo arkaa nabiga riyadii u arkay wixii uu ku riyooday ayagoo sidii ah oo adqaatha axlaam aan ahayn oo waadix ah ayuu arkaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam tanaa lagu bilaabay muddo intee leeg ilaa 6 bilood sida ahaarta kale ku soo aroortay ilaa 6 bilood ayaa sidaas ahay calayhi الsalaatu wasalaam si waxshada nabiga ay ugu zuurta ay ugu zuusha waxyaabaha uu arkaayo ugu diyaar garo waa tamhiid yani waa la diyaar garayn walidalika nabiga xadiidkiisa waxa waye sal اlه alيه wasalam الرؤيا الصالحة أما صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب 46 جزءا من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم فترة النبوة دي 26 سنة يجي سو سيدا ما. طيب 26 سنة هذا يهد 6 bilood oo dariya arkay marka 6 bilood hadii loo qaybiyo 46 loo qaybiyo noqonayso sidaas ma fatradii nubuwada oo 46 meelood loo qaybiyay meel kamid way leena ruuya saadiqo nabiga arkay fatrada sallallahu alayhi wasallam muddo 6 bilood marka riya kan arkin buu hay ilaa iido qad oo adqaat axlaameen ayay u maalijay fakana wuxuu ay la yara kan arkin ru'ya lafdi ra'a ficilka masdarka ayaa kala duwan ra'a oo arkaya ra'a oo macnaa calima ra'a oo macnaa ru'ya waxyaabo fara badan ay leedahay ra'a oo macnaa ra'yi laakiin masdarka kala duwan ru'ya alif haddii lagu taaga waa tii riyada macna alxuluma ru'ya haddii la yiraahdo lagu dara waa tii basariyada aragtadaheed haddii la yiraahdo maaragtay ra'yi haddii la yiraahdo waa tii qalbiga aheed oo maaragtay ra'yiga aheed marka macnaa cilmi oo kale inay noqotona waa lagu fasirina waa dhici karaysaa fakaana laa yaraa ru'ya ilaa jaa-ad way u imaani jirtay marka ru'ya iyo ru'ya ay iskaga kaa darmi weliga oo taa la soco ru'ya waa midda oo riyada aan dhahna oo macna alxulumka midla falaqi subxi subaxa cadaankiisa oo kale ugu imaadi jirta uma intaas kadib riyadaas markaas 6 bilood sidaa u arkaya kadib waxa waa tamhiid rabbaaniya xubbiba ilayhi nabiga waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa'a cidlo inaas jooga ayaa la jeclaysiiyey inuu dadkan iyo asnaamtoodii iyo waxay caabudayeen iyo sheekooyinkooda baatilka inuu iskaga dhacbax oos meel cidlaa taga ayaa nabiga la jeclaysiiyey calayhi الsalaatu wassalaam tamhiid rabbaani waye wa kaana wuxuu ahay calayhi waalihi الsalaatu wassalaam yakhluu kii khaali noqdo yacni wuu tegi jiray waa ka cidla tegi jiray waa cidla tegi jiri way bigaari xiraa'in meesha la yidhaha gaaru xiraa ayaa khaali ku noqon jiray oo iskaligiis tegi jiray fayataxanathu fiihi waa ku cibaadaysan jiray wa huwa taxanudkan adtacabudu waye allayaaliya habeenna ayuu ku cibaadaysan jiray dawaati alcadadi tiri u saaxiba qabla an yanzica ilaa ahlihi intaasan reerkiisa usoo noqonin wayatasawadu waana sahi qaadan jiray lidaalika arrinkaas u sahi qaadan jiray yacni cidlaha nabiga la jeclaysiiye qaaru xiraa buu qaali ku noqon jiray qaaru xiraa oo meesha hadda jabal nuur ay iskaga magacaabayeen reer maka maxaa la yidhahaa mina ayay sharqiga xoogaha ka jirtaa taqriiban 5 kilomitr oo kale 5 mayl oo kale ayay sheegaan inay maka u jirta xaramka haddaad fuusho oo gashid godka buurta madaxeeda ah oo nabiga uu geli jiray calayhi الsalaatu wassalaam way soo qalloocsantahy sidaasay usoo qalloocsantahy fuulitaankeedana uu fogyahy nabiga nin ree makaas ahay oo ari ku raaci jiriy oo buuraha iyo godadkooda yaqaan sidaasay usoo qalloocsantahy godka haddaas gashid nin dheer intuu istaago way dhirirkiisa koro waana ballaari oo meel oo qofku ku fidi karo oo isku jimacsan karo way sida rabo u saaxan karo waana soo qalloocsan oo marka wuxuu ka hor imaadsan yahay kacbada oo hadda kacbada masjidka xaramka dabaqyo badan ay ku dareen laakiin waayihii annaga ardayda aheen oon qaabilsan meesha fuulnay kacbada toosaanu arkayna markaan godka galnay aadi baanu arkaynay laakiin hadda in la arkayo ma aqaana mar dhan u fuulin in la arkaayan umalayn maayo liannahu aad bay u dheereeyeen masjidkii waxay ka kormariyeen kacbadii ay ka kormariyeen
marka waxaa dhici karaysa inuu kacbada nabiga ka fiirsanayay sala allahu alay wasalam meesha halkaasuu ka fiirinayay wakaana yakluu bigaari xiraa'in gaarka godka buurta ku yaalla ayaa la yidhaha xiraana waa buurtaas fayataxanathu fiihi taxanudkii uu fasira waa tafsiir الzuhri buu leeyahy xaafid wa huwa atacabud weye taxanudka waa tacabud wa huwa atacabud weye allayaaliya fayataxanathu fiihi gaaru xirow ku cibaadaysan jiray allayaaliya habeena dawaati lcadadi tiri u saaxiiba qabla an yansaca ay qabla an yarjica ilaa ahlihi intaasan reerkiisa usoo noqonin halkaasuu muddo kusoo cibaadaysanaa kadib markay shaahida ka dhamaatana waa soo noqonaa reerkiisii buu imaanayaa ويتزود لذلك أرنتاس أصحي قاضا قبل أن ينزع يرجع إلى أهلي معنى حوقها قبل أن يشتاق إلى أهلي أو كلوي انتظر رجل أسو هلوبين أسو نغني ثم يرجع ونغنى إلى خديجة خديجة أسو نغن فيتزود وصحي قاضا لمثلها سيد وكلو صحي قاضا حتى جاءه الحق إلى أصوحي قوي ماذا حق إلى جبريل قوي ماذا وصوحي كسو دق النبي صلى الله عليه وسلم لغاية كغار وحي حتى فجئه الحق إلى أسحق كسو كذية ملكا وإسلام عنهم والحال هو نبينا في غار حراء أصقه غار حراء جو حراء بورت اللي يرى قد كذي أصقه كجرة أي صوحي قوي ماضي فجاءه الملك ملك باهو ماضي فقال وحنيري اقرأ أقرأ أيها وحبري وأغري النبي صلى الله عليه وسلم أغرب ويري ملقي فقال النبي وحير عليه الصلاة والسلام ما أنا أنيق ميه بقارئ مدوى قارئ وهو أغري ميه قارب علماء قار وحي كينين ما ظنين استفهاميته ما أنا بقارئ ما أي شيء أنا بقارئ محان أنيق أغرنا لكن تفسير كالصح معين محاجرة ماذا حجازية يا خبر كذا بقى لقجرة ماذا استفهامية خبر كذا بقى لما قليه ماذا والنافية وحجازية يا خبر كذا بقى لقليه وما ربك بظلام وما ربك بغافل مركا وما أنا بقارئ ما أنا أنيق ميه بقارئ من قارئ وهو أقرم يقان ميه فأخذني وائقبتي بير النبي عليه الصلاة والسلام جبريل باي ملقي وائقبتي فغطني ويحنوجي غطني بمعنى عصرني يعني وأدبو يقبتي وكروي غطي قوحة اللي راقفك مركز بيتين بس يا غطه في الماء باللي را بيوتين مركز نيفتو كل عليه وكل سوما غطي وتين بين مركب هنا أنا مرت أن انت مرة أنا رجل فغطني مركب واي ما يرى مجوجين يا مش نيفتو كل عليه واي حنوجون حتى بلغ مني إلى أسكجارة حتى بلغ غضك إلى أسكجارة مني أنا حقيقة الجهد الغاية حتى بلغ فغطني سما نفتي وقعلي ويأتكي ويقبطي حتى بلغ غضك فاعلك غضك كدك غضك انت أسكجارة الجهد أي الغاية غاية انت أسكجارة مني أنا حقيقة قبشتي يقبطي نفتي وقعشونتي حوقي يقبطي أدبن وحنوصل معنا غاية قاري ويحنوك طيب قارنا وحي أغرين حتى بلغ مني الجهد بمليين جهدي انتاز إيقار دب انتاز إيقار صوصة كمليرة ثم أرسلني إجمعنا أطلقني ويسيدي فقال مركزا وحير اقرأ أقرأ فقلت وحن ما أنا بقارئ سيدي وكلهم وي ماذا سيدي وي نافيدي فأخذني وهي قبت فغطني وهي حنوجي وهي مجوجي نفتي وقعلي بسيقف بيلة بيه كلا الثانية مرلبات حتى بلغ غضك انت اسكجارة الجهد غاية انت اسكجارة مني أنا حقيقي ثم أرسلني بمعنى أطلقني ويسيدي فقال وحيري اقرأ قلت وحنيري ما أنا بقارئ قارمه فأخذني وإيقبت فغطني هذا سيدي وكلا وإيقبتي وإمجوجي الثالثة مرسد حاد ثم أرسلني ويسيدي فقال وحيري اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم مناسبة حيث نبيك محل واحد وجل عليه الصلاة والسلام لازم غاري وحوه ما يغاني حوغان
وأخرس مبرا النبي عليه الصلاة والسلام ومركو قرر وحي كسو دقايين قفك انتباهيسي إنو سوجي هذا وسوجي هذا سي وحي اللو شيغا يو اهتمام أسيه هي لو برا مجي والله يابا إن لو دليش هذا أرضيك وحلا برا يحوغا إن لا يرح نوجي لكن أرضيك هيدلها قدر فرن طالبين تو قدر فراني برياني سيقرا عن أرضيك انت يوحنا قام بقدر فران خلط وين قفك إن انتباهيس لسوجي دي وهي ما إن أمارتي دبلوغي استماهن سكستوا أيضا بو إلهي سود دجي مقع إلهي وحكو أغري ربي وحكستوا ومي إنسانك ومي مراحشي وصومري والله إشاري اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيضا أيا سود دجي وذي أغري ملك فرجع رسول الله رسولك الله وصون نقدي صلى الله عليه وسلم بها آيات كيف والله صون نقدي هذا الأغري يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم آيات دي والله صون نقدي يرجف حاله لولنا فؤاده قلبي قيس أسوس قريدي ونركي دونا الرواية الدنب إمام البخاري وحديه دونا ترجف بوادره بوادرتيس إفعادك وإسلام يشو بوادرتنا خيتاي وقرب كان يقورت دحدود ميشاس بدبوديس قفك مركز عبسد سو مبدبوديس أنا ما عبسدي ولا حنوجي مركا وحزارك جيرنا واركي مركا أسيقو ساسو كونو قرقريلا يماشي بدبودي أيها الصون نقضي فرجع بها رسول الله رسول كيسا والله صون نقضي صلى الله عليه وسلم يرجف حاله قريلا فؤاده قلبي كيسا أما محال ربوادرتي سماشاس أي سوي لولونيس فدخل وقال على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة أي وصو قالي فقال وحنير عليه وآله الصلاة والسلام زملوني إدودوبا ده جماعة أكل والله الله لما لهم قفك وين محترم كان فزملوه النبي ويد دوبين وحبا كورك لغا ساري بوستيه حتى ذهب عنه الروع أرقق إلى أسكتك الروع يعني وأرققها قفك انتو وكأرققها أيضا قرآن قبل فلما ذهب عن إبراهيم الروع ملايكتي وكعب صدي مركور كي قفك وابني آدم خوف كان وشيء فدريح وقفك كأبورا مرقار واحد مغليسة اللغة العربية عجائبت هذا جمال رائع أنا وهم جمال ولا قارق قحوا كلهم بيولوجي هذا لقيها واصل نوع زي يولوجي هذا واحد كلام ما هي فلما حتى ذهب عنه الروع إلى أرقق النبي وكتغ فقال لخديجة أم المؤمنين خديجة أيكير عليه وآله الصلاة والسلام وأخبرها الخبر والحال قد أخبرها الخبر خبر هو الرمي يعني جملة وفعل كذا ماضي هذه حالة بعد الدواء ولا الحرية مش قد ولا الحرية قد ولا قد لسوا مركز وأخبرها الخبر فقال لخديجة لم يوحوكي لخديجة وأخبرها الخبر والحال قد أخبرها الخبر خبر كين وشيقي مركز خبر وشيقي وكير لقد خشيت على نفسي نفتي دام بغيبه يقول كذا وحو كعب صدارك وحولي نفتي دام بغي فقالت خديجة وحيتر أم المؤمنين رضي الله عنها كلا ما يتر ما هو هذيك النفط هذا وما يصدق سوقر هكذا والله وان كدارتي ما يخزيك الله لكم الدلينا أبدا ولقى لكم الدلينا ما يحزنك الله أبدا هو يقول هذا مجرى لما روايات كغارة سيدة سكوية ما ديبوا لي حافظ ما يخزيك الله أبدا ساسكم قرر إلهيكم هو جناي ولقى إلهيكم الدلينا حسبت معايد هذيك واحد وناكسن بعض سميسا قفك أو أفعاشي أي وناكسن تو خيرك كشقية دل إلهيكم اللي مرك ما حد سميسا إنك لا تصل الرحمة قرابة حريرسا قرابة حق بيك قليين إلا حريرين وواجه
وادحر الإنسان وتحمل الكلا قفك عاجز كونتنتيجة قاري كرنا أحواز قبطان يعني الكل هو الذي بلتيس قفك الاستقلالي أموريس الاستقلالي نوي وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير قفا ملنا وحبك سوى قبصنين أينما توجهه نعم marka alkallo waa qofka caajiskan wax dantiisa qabsan karinna waxbaas u qabataa qaraabadana waad xariirisaa wa taksibu lmacduuma wax dadka agta kale ay samayn karin oo macduum ahoo dadka agtooda jirinna waad kasabtaa oo dadka waad u samaysaa qaar waxay ku fasireen meeshaan sidii khataabi oo kale xoogaan wa taksibu lmucdima qofka faqiirka oo waxba aan haysanin ayaas wax u qabataa وصحكوك الميساء وصوك سبتا لكن لفظك سيدان أيا بضن وتكسب المعدومة نبقى حلوقيا عليه الصلاة والسلام بعشردي أوقلي وهم المؤمنين خديجة حتى أوقلي كان محظوظ في التجارة وأنا ضدك وذا كمان أيين إلى إمارة أم المؤمنين خديجة بعشردي المركو أوقلي أو أماندي إسي بعشردي الربع أي لا يبدي إيو أبدا كيسي كلو يتقاني يقول كيسي أيضا ضربت رضي الله عنها معدوم كان شيء قال لا يا ودتك كلا سمين كرنا واد سميسا وتقري الضيف مرتدنا واد ويسا وحن مركه رواية كلا وحوي وتصدق في الحديث وركاغن ورون بين مشيت هذا الكاغن ورون وتعين ودك الميسا على نوائب الحق حق نوائب تزددك وذان وحي ددك وناق وذان او خير وذان نقربتيسا مركب ماشي وحوي إن صنائع الخير تقي مسارع السوق ضدك وناق السميان وحي وناق وسمينا أي سمينا هنا كإلى لنيسا وناق سميته وحي كإلى لني ضدك هنا يسحنوا هلاك سمان مركب إنتان وصفه وناق سنباد ليلهي وفك ضاطرة حوغا إنه وحكود عين وزعب سناي حكا والا دجيان والله دمريان عقلي كده دي قفتاس هي خير كده توفيق إلهي وسيهي باي كمده ومره ربكو قرأت النبي وناقيس صلى الله عليه وسلم مرك انتان وصفه وناق قفل له إلهي يدلكم الرداء بقي بايتي رورت نبي ناسكو قدعا كبقي قرابة واضح الرساء عاجزك وحن بارتا دنتيساس قارسيسا وحن لددك لقبان كريم باس قبطا مرتداس دويسا رنبات شيكتا وتعين وضوك الميسا على نوائب الحق نوائب توحي لسود رسيوطا بالإرهاء لكن نوائب الحق إن لقحنا ساسوي نوائب من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازم سيده وكل خير شر لوضوانا قطع نوائب مرك نوائب تحقق وهو ناكسن يسقرب سيساوي وسوك الميسا ضدك وذان ضدك وحو ناكسن وذان قرب سيسا انتا كمدا إن هورت نبيك ويدجسوا نفسيا ويدجسوا إلى هذا الشيء لبا فانطلقت به وإلى تكتي خديجة نبيك وإلى تكتي صلى الله عليه وسلم حتى أتت به إلى كلمة هذا ورقة بن النوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة نكا ليرا ورقة ابن النوفل ابن أسد ابن عبد العزى ليرا وخديجة أذيركت أورد لي أي يوكينتي خديجة بنت خويلد ابن أسد وي خديجة أم المؤمنين خديجة محل ليرا خديجة بنت خويلد ابن أسد من كان ورقة ابن نوفل ابن أسد خديجة أذيرك طب هذا لي مرك طيب خديجة ورقة أيوك أنت وكان ورقنا وحو أي امرأة من تنصر نصران وفي في الجاهلية وقت الجاهلية أياس نصران وبيوس كريشتان نقضي قريش مركي مشركين هايين السقا إيو زيد بن عمر إيو مارتي زيد بن عمر سدح باي هايين أي مارتي شركة إيو وحن إيو أركين ويكتغين كوي كلا ديك مارتي إلههم بانو خالي نغرنا يرين لكن ورقة كريستان كإنا ندين وقدوي واركي كريستان نمدي وقات وكان امرأة تنصر في الجاهل يجيبوا نصران وبي
وكان وحوها ورقة يكتب كي قرأ الكتاب العبرانية كتابك أو عبرية هاي اللغة العبرانية عبرانية دي عربية ويسودوين آد بيسكوب دوين واللغة بقية دي هذا بقولها بني إسرائيل يهود أي كهلان اللغة العبرية أي قري جري فيكتب وقري جري من الإنجيل إنجيل حق هذا بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبها كلمة روايات قاروي بالعربية الروايات قاروي بالعبرانية الروايات قاروي لا بد صح محاجرة من كان اللغة العبرية نوابرتي اللغة العربية نواب اللغة دي سواء يقان كتاب كمركة أو إنجيل أياس اللغة العبرية نوايا يقان وقري جري اللغة العربية نوا كترجمة جري وقري جري مركة اللغة العربية نوا كقري جري توراة إنجيل اللغة العربية نوا كقري جري إذا مترجمة اللغة العبرية نوا كقري جري waxay baybalku magacaawayeen hadda oo luqa cibriyana aan ahayn ayay haddana leeyihiin waa kitaabka ilaahay soo dejiyey oo nabi ilaahi ciisa ku soo dejiyey nabi ciisa ma luqadiisa waxay luqa ingiriisiga ma yihiin ma jirto luqa haddaad weydiiso xataa way ogyihiin inay luqa ingiriisiga ee translation way translation tarjama la yiraahdo waxaani ma kitaabka ilaahay soo dejidan ma laakiin annaga waxaan akhrisanaynaa kitaabka ilaahay quraanka asoo sidii rabbi ku soo deji qaddan dariyan kama unzila ayaan akhrisanaynaa alxamdulilah wasnoo yeelaa وكان يكتب كي قرأ أيها ورقة الكتاب العبرانية كتاب عبراني فيكتب كقرجر من الإنجيل إنجيل حق هذا بالعبرانية اللغة العبرية ما شاء الله أن يكتب أنتو وحي إلهي دون قرجري وكان وحو أي ورقة شيخا كبيرا من أوضية قد عمي وين ربيلي مركا ورقة هذا الكيسة ونركي دونها وحميش كجرة خديجة مركا أرت نبي حالديسي وحو شيغي صلى الله عليه وسلم كهاندي ومجينين وديالك كلو مجينين كان خير هاي وملايين ويكسون تاي إنه دين دون هاي خير دون هاي دين وحي وقد ويوقاتي ويكسون مركا خير أي النبي وملايين يصدرتد أي أسو ودي ويورق وكنتي لكن كهاندي إيو وديالك وحوك لو ما ينجينين ورق هذا الكيسن ونركينا nin oday oo ayelba way markaas oo indhala faqaalat lahu khadiija waxay ku tiri waraqa ya ibn am adeerkay wiilkiisiyo ismac maqal min ibn akhiika walaalka wiilkiis hadalkiisa bal maqal maxay walaalka wiilkiisa u leedahay adeerka wiilkiisa ma dhaad nabiga aad buu uga yaray waraqa nin waa ayelba way nabiga sallallahu alayhi wasallam waa indhala yara waa fardan jirra marka dhinaca daada inay ugu jeedana waa sax dhinac kalena hadda haddaad abtirisid oo qusay aad u tirisid waraqa ibn nawfal ibn asad ood maar ilaa qusay ila iskii soo dhacan nabigi sallallahu alayhi wasallam adeer buu nabigu uga adananaya marka walaalkiis wiilkiisii uu noqon cabdullaahi iyo xaasiman iyo waraqa way sinaanayeen marka labada dhinacba waa sax marka walaalka wiilkiisa bal dhageysa ismac maqal min ibn akhiika walaalka wiilkiisa ka maqal maa yaquulu wuxuu leeyahay min ibn ka maqal bal hadalkiisa dhageysa faqaala lahu waraqa wuxuu yidhi nabiga ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ya bna akhi walaalkay wiilkiisiiyow maadaa tara maxaad aragtaan faأkhbarahu rasuulu llahi sal اله alay slam rasuulka allah wuxuu u warramay khabara maa ra'aa wixiis arkay arrintii khabarkoodii say wax u dhaceen buu u sheegay faqaala lahu waraqa wuxuu yidhi waraqa haadaa kan annaamuusu khayr wada way alladii naamuuskii nazala allahu tacaala alla uu soo dejiyey calaa muusa nabi muuse ku soo deji naamuus saaxibu siri lkhayr baa naamuus la yidhaha jaasuusna saaxibu siri shar qofka sharta ku soo aruuriyo oo un dadka iyo cawradahooda ku tatabaco balaayada kuu keena ayaa jaasuus la yidhaahaa kan khayrka iyo sirta khayrka kuu sheegana naamuus baa la yidhaha marka waa khayr wadihi oo ilaahay ku soo deji nabi muuse ninkan waaba kirishtaan nabi muuse kii ilaahay ku soo deji muxuu leeyahy moogtay kitaabka tawra injiil axkaam uma dhamaashatirneen axkaamta ma nasakhin injiil tawraad ma nasakhin marjica loo noqonayo axkaamta laga qaadanayo tawraad bay ahayd marka nabi muuse tan kale waxaa way maaragtay hadda liskuma khilaafsaneen nabinimadiisa baynama ay bani israa'iil ay mogta wax ka sheegayeen nabiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam
سكستبا وحير وخير وله النبي موسى وحيه كان جري قال العلماء وحي ليهن وحو النبي موسى إليه نبي عيسى وعدي يا رمي عين كاسو كاني لكن نبي موسى هلاك يا عذاب فرعوني ومدس يا كاني أصدقوا خير دين يومارت وناقنا كاني نبي محمدنا صلى الله عليه وسلم دي فرعون هذه الأمة شادين تودي إلهي هلاك بوغدقي خير رحمتنا إلهي وأسودري هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني شليت ديدي فيها جذعا جعلت فيها جذعا شاب لقيدي جذعا الجذع جذعا سوما تغانين نفك الكدعسنا هو شابك نفك حيوانك دلير يا اللي را جذعا مركب وحوليه مدة أديك الرسالة اللي سو ديبا والنبي هذا أي مادي هنا دليرها الله يبقى كرين لها ونمارتني واحتر نقول لها ayaan ku reynay hadda duq baan noqday waxba ma qaban karo leey yaa laytani shalaytadaydi akuunu ahaadeedi yaa fiiha ay fii muddati nubuwatika ama fii muddati risaalatika jadacan ay juciltu fiiha jadacan yacni liiga dhigeedi mid shaaba laytanii akuunu xayan qof nool maxaan u ahaan weyn id yukhrijuka qowmuka qowmkaaga markay ku bixin doonaan oo dhulka lagaa saari doono oo lagula dagaalami doono محان ونولان وي وقت قاس وكوكرت فقال صلى الله عليه وسلم وحجين أو مخرجيهم مياي بحنايين أو مخرجيهم مياي بحنايين محنا محادن بهم كسب ذولي بحنا من أخلاق ونكسن بانهاي قرابة حريرية آمن بانهاي محل يرهبين مشيغا محلي بحن دنبقى محوي أو مخرجيهم هم توا مبتدوا له الإمام ابن مالك مخرجية ضاسنا وخبر مقدمة ومخرجون لي ساسكلا مخرجون لي ساسكلا محيي بحين أيدني بحين دونان قال ورقة وحجيري إعلال كذا أنا آدم سيقلين قال وحجيري نعم بييري وقل بحين دونان لم يأتي لم إماد رجل قد هرب بمثل ما جئت به وعد أدق اللي إمادي أكلون اللي إمادي لما أركن إلا عودية ولا لعلي تمام من آدمك طبيعتي وحي برتين خلاف سندي لو كان ويكون قال لما يين وحنا أنا أبيال كان كسو قارني كذا نقول لك يكون رقم جديد وعد ودنا كذا نبكو ذواك مركب وعصبان ذاك هذه لو كان وما قادن كران تكن كودي روان مركب قف واحد هذا تن والدين حق عليس بدن باقي إمادة تكاليف واجبات marka kuma aqbalayn way maartay way ku bixinayeen lam yati rajul min lam imadin qad wiligisna bimithli ma ji'ta bi wa azadiga li imadi qala illa udiya wala la ulaytum hasaati wa in yudrikni hadu isoo haleela yawmuka maalinka ay ku bixin doonaan ku dagaalami doonaan haday soo gaar ansurka waan ku gargaaraya nasran gargaar muazzaran oo xog badan wa usdud bi أزري يعني مؤزرا يعني نصري أو حق بدن أو قول فعل أنت تبرتي ده يعني كوكا رجال دونا بولي مركا يكون بحين دونا سيدا سولي ثم لم ينشب ما بداهن لم يلبث أكلوي معنى مالكم دقيقة نشب بالشيء وحوي وشيء وكدقي معنى مداهن هوي لم ينشب ورقة مداهن لم يلبث ورقة أن توفي أنه شأنه توفي واب الله أفسدي وفتر الوحي وحي واب قوي واستاقي وحي واستاقي جبريل واي ماضي مرور رياي هذا وحي واي ماضي نبي واقف صدي محل رارين دام والله كل مي وحي واستاقي قال ابن شهاب وحلي هاي حديثك يا وريون صومرني يعني سند كيس محل عقيل عن ابن شهاب سوما وحن صومر ابن شهاب مركوانيكي حديثك ورينا هاي وعروة كسوري قال ابن شهاب وحييني وأخبرني سيد العروة يقول شيء وكلا وحوي شيء هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهي في جنة الله بشاري بعد لي أصغر وبني زهرة سيد ابن شهاب بني زهرة وواهي قرشي وبني زهرة وأخبرني وحكى وزي شيء أبو سلمة سند كواكيور ابن عبد الرحمن وحوي شيء
أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أصدق أبيه الله كرال النقد جابر أنه قال إنه يري والحال هو جابر يحدث كورما عن فترة الوحي وحي يسيده قوي فقال في حديثه جابر وحكير حديث كيسي جابر نوام الله شيء صوت جابر وانا يراي وانا أنصاري وقت كان وحي يسوي الدقائق نبي لما جوجن عليه الصلاة والسلام فقال في حديثه جابر وحكير بين نبي إنه يري بينا أنا أمشي أنا قوة صعب إذا سمعت وعن مغلي صوتا دواق من السماء سمدا أيان كمغلي دواق فرفعت رأسي بصري مدحي أرقي كان كله قادي إذ سمعت صوتا دواقا مغلي أنا قوة صعب من السماء أيان كمغلي فرفعت عن كله قادي بصري أرقي كان كله قادي عركان فيري فإذا اسلم مركب إذا هذه فجايدة دوائي الملك الذي جاءني بحراء ملقي واقي حراء يقول مالي مركي وحي مدقونا كده جالس وحكفدها على كرسي بين السماء والأرض كرسي وحكفدها سمدي لك دحدوذا كرسي معاه علنا قدرة ربي الله الذي رفع السماوات لغير عمد ترونها مركا ملقي فارو حراء واقي يقول مالي مركي وحي يقول كده أيا عرك يدلك دحدوذا دواقو مغلي هدو عرك في رياوة ملقي ما كرسي كفدها عرك سمدي يدلك دحدوذا فإذا الملك الذي جاءني ماذي بحراء يقول ماذي أما بحراء وأنا صرفنا صرفي بدون صرف لفظ وديك بحراء جالس كي كفديا وي على كرسي وكفديا بين السماء والأرض فرعبت منه وليك أرققحي وأن أرققحي رعبي فرجعت وأنسون نقدي هدنا فقلت وحن زملوني فأنزل الله تعالى الله حسودجي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر هيا لسودجي فحمي الوحي وحي واكل الله وتتابع وانس الراحل ورنك اغاس اسددوبا يو استاك قم فأنذر ضدك ودك كفرك شركك ودك وربك فكبر ربك اغانا ويني عظم ربك وثيابك فطهر درك ظهيرة نجاسة إسكا ظهير مس أخلاق حمد إسكا كظهير نفط هذا لا وضع ولا فسير والرجز فاهجر صنم ككديراو صنم ودم إيو إلهي غير كسول عبد كديراو أيضا بس صوت دقين ومركز وحي كقوي وإقرأ قيبت هذا ورصوت دق تكذب أي أيضا صوت دقين سيد الراجحة وحي كنوا كل الله دي وإسر الراعي تابعه عبد الله بن يوسف هذا الكلام مهم جدا تابعه حديث كان تابعه هذا ضميرك حق ونقنا حديثك وحورنا يحيى بن بكير سوما وعن صمر يحيى بن عبد الله بن بكير منك بخاري وكورنا وحار راعب إليه عبد الله بن يوسف وحديث كورني كورنا وتنيسي عن لهني ومارتي من أثبت الناس في الموضع لهن تابع عبد الله بن يوسف وأبو صالح عبد الله بن صالح بل يرى أبو صالحا انبضروا معلقات كوري إمام البخاري وكاتب الليث بل يراها وحوي وحوقها آدم وحوقبا لوضعا وحي متابعين ومتابعيهن يحيى بن بكير الليث كالوريه يعني الليث باي متابعين ويهن ياوي لوضع قفوا متابعين دوا يحيى بن بكير عبد الله بن يوسف هي أبو صالح هذنا وتابعه هلال بن رداد عن الزهري زهري وحكورنا يوم صومرنا حق مركان سنة صومرين عقيل صومين وعصومرنا وحسنا عقل هذنا زهري كوري محل يرى هلال بن رداد نكال اللي يرى يا زهري كوري وقال يونس ومعمر يونس معمر حديث كوي وريان أيجنا ويا كوريان وعكور الليل كلفتي زي كوري ما زهري ما زهري كوريان يونس معمر زهري كوري تلاميذ زهري واي لوضما يونس بن يزيد الأيلي إيو معمر بن الراشد وحاوي لوضما وحي كوريان تلاميذ زهري واي لفظ قوضه وحاوي بوادره ماشي ترجف فؤاده ماشي هاي ترجف بوادره مركب بوادر فؤاد واسكم سياسو كليه لفظ هو يونس بن يزيد الأيلي إيو مارت معمر بن الراشد اليماني أي ورنايين وحاوي لفظ واد انت كلا وافقسيه لكن بوادره انت سيكون جرتي باب والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.